waxaan qiso igu darneed nin ahlu quraan ka mid ah waxaa la soo wariyey inuu asoo iska lugaynayo baadiyaha duurka socdo oo indhaha uu beelay waqti ramadaan lagu jiro markaasuu meel hood banaanka qofna ma hayo iska fadhiistay waxaa la sheegay marka allahu aclam can sixatiha laakiin qisa iga cajibisay oo qur-aankana qariib ku ahaan waa suurat albaqara uu bilaabay wuu dhameeyey inta afurka la gaareen afurka markuu soo dhawaaday markaasuu dhahay suurat albaqara maanta afurka adaan kaaga fadhiya adaan kaa rabaa inaan kugu afuro afur ii keen adaan marti ku ahay suurat albaqara wa ficlan afura uu imaaday raashin kale nooca waa indhool wax ma arko wuu cunay maalintaas maalintii labaada ku imaatay aali cimruu ku dhaftay haddana suu ugu afuraayay maalinba suuradda u marti qaadaysay kamaa yaquuluun laakiin in aan ku kalsoonahay ii sheegay maalinba su ugu afuraayay suurat ancaama imaatay bas waa dhuusinya dabcan meel duuru jooga gurigiisa ma yaqaano hindhihu beelay waxba yacni qatacat calayhi subul xal kale ma hayla inuu qur-aanka ilaahay ugu dhawaado mooyaane suurat ancaam uu akhriyey afurba ma lahan wuuna dhaariyey wuxuu dhaha ancaamay maanta adaan marti ku ah waxba lama siiyo wallaahi uu dhahay suurat albaqara kulli way soo marti qaadeen adi soo maahan oo 70,000 malag kula soo degtay haddaa iqadisay berina adilan kugu celinaa aday kuu taalaa marka haddana suurat ancaam uu akhriyey waaba la soo qaada wuxuu arkay asoo gurigiisa joogo markaasuu dha dhacamay baqare iyo kulli waa ii marti qaadeen laakiin adiga waxa maalin la maqneedba jidkaa iisii banaynaysa yani xaafadana geysaa rabta ma garateen asraar wax baa la sheegaa oo waxa weeyaan qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala qariib kuma ahan hadduu maalinta qiyaama suurat albaqara oo aali cimra kaannaha ghaayayataani aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam ay imaanayaan oo u doodayaan ninkii oo akhrin jiray qariib kuma ahan in adduunya waxa noocaas ku sameeyaan qur-aanka waa kii laba shahiid kala hormarsiiyey oo hal qabri u wada socdaan laakiin aqra'uhum likitaabi illaahi hor la marsiiyey